weerarada siyaasadeed ee u dhexeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa mar kale xiisadoodu kor u sii kacaysa kadib markii dowladda Kenya shaacisay in alaabaha Soomaaliya ka yimaada laga joojin doono garoomada Kenya. Dowladda Kenya ayaa sheegtay in alaabta ka soo degta garoomaha ee aan dadkii lahaa la socon lala wareegi doono kadibna la burburin doono, waxaana xaqiijisay xukuumadda Soomaali lagu dirka ahi in xeerarka hawada ee Kenya tallaabadan waafaqsan tahay. Tallaabadan ayaa ay ku micneeyeen in dowladdu ogaatay in agab fara badan oo noocan ah ka soo dego garoomada, taasna ay halis ku tahay amniga Kenya sida ay ku sheegeen bayaankan. Waxa kale ee ka mid ah qoraaladiisa, dowladda Kenya ma ogolaan doonto in alaab aysan cid la socon ay ka soo degto dalka Soomaaliya. Diyaarad kasta oo arrintan samaysa waxay qaadi doontaa mas'uuliyadda. Arrintan waxay u muuqataa mid cadaadis xoogan lagu saarayo ganacsatada Soomaaliyeed oo markii hore awoodi jirtay in ay iyagoo dalka jooga ay alaab u diri jireen Kenya, kuwaasoo markay halkaas tagaan ay la wareegi jireen ganacsato kale oo xiriir shaqo la leh. Go-aankan maanta ka soo baxay Kenya ayaa qayb ka ah tallaabooyin dhowr ah oo Kenya ay ku cadaadinayso dowladda Soomaaliya oo ay ugu dambeysay fiisihii ay ka joojisay siyaasiyiinta Soomaalida.